nabadgelyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin sharaf iyo karaamo iyo ciise rabbi dushiina ha yeelo anigu waxaan haysaday cali macalin ibraahim kani waa barnaamijkeenii sabuur iyo sheekooyinkeenii guulaha guushu waa inaad rumayso riyo iyo hami aad lahayd dadkuna guulaha ay gaarayaan way kala duwan yihiin inkastoo ay jirto doonis alle iyo qadar haddana qof walba meesha uu rabo ayuu gaaraa waatii maamaahdii Soomaaliyeed ay tiri lax walibaahi meesha ay isdhigto ayaa lagu gowracaa qof walba dadaalka uu bixiyo ayuu mirihiisa helaa ma jiro qof wax bilaa dhib iska helaya ilaa dhib in loo soo mara maahee xitaa isagu yuusan u soo marin dhibka sheekada maanta miiska inoo saaran waa sheeko inagoo dhan dareenkeena bedeli kartaa inta aan ku guda jiray baaristeedana dareenkayga aad u bedeshay isagu waxaa ka waramay shakhsigii ugu wanaagsanaa adduunka yacni nebi Muhammad sallallahu alayhi wasallam isagu waxaa lagu sheegay inuu noqon doono amiirkan ugu wanaagsan ciidankiisuna noqon doonaan ciidan kuwa ugu wanaagsan isagu waxa uu ku seexan jiray habeen walba rumaynta hadal uu sheegay nebiga qarniyo ka hor riyadiisa ayna ahayd rumaynta riyadaasi isagu waxa uu rumeeyay riyo aysan rumayn suldaamo isaga ka horeeyay isagu waxa uu ahaa amiirkii ugu yaraa ee noqda amiirkan ugu wanaagsan isagu waa Maxamed al-Faatix amiirkii furtay magaalada Qusayniya ee hadda loo yaqaano Istanbul ee ku taala dalka Turkiga Maxamed al-Faatix waxa uu dhashay 20kii Abriil 1429 miilaadiga oo waafaqsan 26kii Rajab 833 hijriyada Maxamed al-Faatix aabihii waxa uu amiir ka mid ah amiiradii dawladii Cusmaaniyiinta aabihii si uu u tababaro wiilkiisa waxa uu u qabtay culimo aad u cilmi badan una cibaado badan si ay ugu tarbiyeeyaan diinta islaamka iyo jihaad jacaylka macallimiintiisa waxaa ka mid ahaa sheekh lagu magacaabi jiray Akhshamsuddin sheekhu wiilka yar marka uu cashirka u dhigo ayuu maalin walbaahi u kaxayn jiray xeebta markaas ayuu kor ka tusi jiray magaalada Qusayniya ama magaalada hadda loo yaqaano Istanbul markaas buu sheekhu ku dhihi jiray wiilkii yaraa ma arkaysaa magaalada halkaas ka muuqata waxaa lagu soo dari doonaa dawladda islaamka waxa uuna yiri rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeele Qusayniya waad furan doontaan oo aad furan doontaan oo aad furan doontaan waxaa nimco iyo khayr oo dhan helay amiirka furtaa iyo ciidanka uu hogaaminayo sheekha maalin kasta xadiidkaas ayuu ku dul akhri jiray waxa uuna u sheegi jiray cidda xaqiijinaysa inuu isaga yahay ee khayrka iyo barakada uu rasuulka sheegay heli doontaa Maxamed al-Faatix maskaxdiisa ayay ku duubantahay arintaasi habeenkii marka uu seexdana waxa uu sawirtaa isaga oo ciidankii hogaaminaya oo dagaalkii uu socdo ciidankiina uu isaga hogaaminayo oo uu dhiig daadanayo habeen walba sidaas ayuu ku seexan jiray wiilkii yaraa ee hamiga lahaa waxa uu niyada ku qabsaday in uu noqdo kii furan lahaa magaaladaasi ee heli lahaa nimcada iyo khayrka uu rasuulka sheegay sallallahu alayhi wasallam aabihii waxa uu ahaa markaasi amiirka muslimiinta mar walba oo uu dagaal jirana wiilka waa uu wadi jiray si uu khibrad iyo hab dagaalka u fahmo isaga oo yar si hadhow marka uu xilka qabto ay u anfacdo oo ay ugu noqoto duruus fiican uuna ku barto hogaaminta ciidanka iyo dagaalgelintooda markii uu aabihii dhintay isaga ayaa noqday amiirkii muslimiinta Maxamed al-Faatix waxa uuna ahaa wiil ay da'diisu yar tahay waxa uuna jiray xilligaasi 23 sano oo kaliya waa dareemi kartaa qof da'daasi jira oo qabta xukun soo jiray sanado mushkilada badan ayaana waqtigaasi jiray gaar ahaan dawladihii gaalada ahaa ee xuduudda la lahaa dawladii islaamka mid walba waxa ay doonaysay inay dhul balaarsi samayso oo ay dhulka muslimiinta wax uun ka qaadato waxaa la sheegaa inuu isku keenay dadkii caqliga khibradda iyo aqoonta lahaa si ay arintaasi wax uun uga dhaxaan ama ugala taliyaan
isla markaas waxa ay liis dheer ugu qoreen mushkiladaha jira iyo mid walba xalkeeda. maxamed alfaatix markii uu arkay mushkiladaha tirada badan iyo haddii mid walba uu bilaabo in ay wakhti dheer ku qaadanayso, ayuu wuxuu ku hadlay hadal aad u xigmad badan oo waxa uu yidhi, noloshayda oo dhan kuma dhammaysan doono xalinta mushkiladaha. intaa kadib waxa uu qaaday tallaabo muhiim ah, taasi oo ah xaqiijinta hadaf weyn oo sharaf iyo qiimo leh. haddii uu ku guulaystana ay dhammaan mushkiladaha kale ay xalismayaan. maxamed alfaatix waxa uu bilaabay inuu isku dabarido dowladdii, haddii ay ahaan lahayd dhan dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid ciidanba. waxa uu bilaabay markiiba inuu ciidanka xoogga saaro oo uu siiyo tababarkii u dambeeyey iyo hub noocii ugu dambeeyey ee wakhtigaa jiray. intaa kadib waxa uu bilaabay inuu wada hadal la yeesho ninkii xukumayay magaalada Qusandiiniya oo uu ka dalbaday inuu magaalada si nabadgelyo uu gacanta ugu soo geliyo. laakiin boqorkii Qusandiiniya ayaa arrintaasi diiday, wuxuuna codsiga ku tilmaamay wax aan marnaba suuragal ahayn. markaas buu maxamed alfaatix yidhi, laba mid uun bay noqonaysaa, in Qusandiiniya aan carshi ku yeesho ama inaan qabri ku yeesho. markaasi ayuu dagaal ku qaaday. waxaa la sheegaa dagaalkaasi inuu socday 51 maalin ama 51 maalin, dagaal adag oo naf iyo maal badan labada dhinacba ay ka lumeen. ugu dambayntiina wuu ku guulaystay inuu furto magaaladaasi, halkaana waxa uu ku xaqiijiyey riyadiisii yaraanta, kuna noqday amiirkii ku xaqiiqoobay xadiidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam. in ka badan 7 qarni ayaa amiiradii ka horeeyey mid walba isku dayi jiray inuu furto magaalada Qusandiiniya, laakiin waa ay ku adkaatay. waxaase guushaasi la hoyday wiilkii yaraa oo ay da'diisu ahayd 23 jirka, waana arrin mucjiso ah. maanta dhalinyarteena da'dooda ay tahay 23 jir, waxay ku jiraan gacanta waalidkooda oo maba ay gaarin goor ay madax bannaanaadaan oo ay isku filnaadaan. kaba sii darane, maanta waxay wareegayaan jidadka oo ay isaga duubayaan fiidiyoyo iyo waxyaabo aan micno lahayn oo aan anfacaynin adduun iyo aakhiro. ereyga dhiirigelinta maanta, qof walba dadaalka uu sameeyo ayuu mirihiisa maalin uu guran doonaa. dhib walbaahina dheef baa ka dambaysa. qof walba oo u sabraa xilliyada adag, riyadiisuna si walbay god qodxayd ku jirto ugu sabraa ugana la soo baxaa. kaasi waxa uu ka mid noqonayaa kuwa riyooyinkiisa ku guuleeya ama riyooyin saxiixa la yimaada. adigu si walbood riyo u leedahay, ma jirto riyo aan suuragal ahayn hadduusan qadarku kaa baajin, balse qadarku waa baajiyaa. waxaa la yidhaahdaa qof iskuday sameeyey, balse si walbo iskudaygaas uu u sameeyey ay ugu hagaagi waayeen. balse qof sariirtiisa jiifaa qadar ayaa ireebay ma dhihi karo. qof walbaahi xaq buu u leeyahay inuu ku guulaysto adduun iyo aakhiro. innagoo dhan riyo walba aan ku jiifanay ama aan ku soo kacnay inaan rumayno xaq baan u leenahay. ilaahay waxaan weydiisanaynaa nebi moxamed waxa uu weydiistay, waxaynu ka magangelaynaa wax walba uu xabiibka ka magangelay. nabadgelyo dhammaantiin.